dadka ay u caddahay qaabaysan tahay una qoran tahay ahdaaftooda waa kuwa wakhti gaaban ku guulaysta yoolkooda marka loo ego dhigooda kale ee aan u dhammayn intaas. soo dhowaada saaxiibayaal, magacaygu waa cabdinaasir safaana. waxaan doonayaa inaan maanta idinla wadaago 5 sabab oo kaa hortaagan inaad hadafkaaga ku guulaysato. haddii ahdaaftu ahaan lahaayeen wax si fudud loogu guulaysto, dhammaanteen waxaan ahaan lahayn milyaneero, injineero, dhakhtaro iyo wixii la mid ah. ha yeeshee inaad yididiilo keliya ku noolaato ma ahan mid ku filan noloshaada. waxaad u baahan tahay inaad la timaado ficil dhab ah si aad ugu guulaysato hadafkaaga. 92% dadka badankii waa ay ku guuldaraystaan inay gaaraan ahdaaftooda. dhammaan way ogyihiin waxa ay samaynayaan, laakiin caqabado ku soo baxa ayaa dib u dhiga inay guulaystaan. waa xaqiiq inaad adigana la kulantay dhibaatooyin la mid ah. waxaad lahayd hadaf, waadna ogayd waxaad samaynaysid, ha yeeshee waad ku guuldaraysatay. inaadan ku guulaysan hadafkaaga waa niyad jab weyn, waxaana laga yaabaa inay kaa hor istaagto inaad mar kale qorshayso yool kale. haddaba marka ay sidaa kugu dhacdo, ha quusan. waxaa habboon inaad naftaada wakhti la qaadato, isna weydiiso sababta aadan ugu guulaysan yoolkaagii, halkaana aad ka barato cashar kana qaadato khibrad. haddaba aan kula wadaago 5 sabab oo kaa hortaagan inaad ku guulaysato hadafkaaga iyo sida aad ula tacaali lahayd. midda ugu horraysa, waxaad dejisay hadaf aan caddayn. sababta ugu horraysa ee aadan ugu guulaysan hadafkaaga ayaa ah inuusan caddayn waxa aad haminayso. inta badan dadka waxay dejiyaan hadaf aan caddayn. aan sii falaqeeye, waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waxaan doonayaa miisaankayga inaan dhimo, guriga leelo, lacag badan aan gacanta ku dhigo, cilmigaasna aan barto iyo wixii la mid ah. hubaal dhammaantood waa himilooyin aad u habboon inaad hanato. ha yeeshee haddii aadan gaar yeelin yoolkaaga misena aadan meel ku qorin, dabcan way adag tahay inaad gaarto. marka aad gaar yeesho hadafka aad doonayso, dabeedna aad qorato, waxaa kuu fududaanaya inaad qiyaasto misena aad qaaddo tillaabooyinka ku habboon. beddelkii aad dhihi lahayd waxaan doonayaa inaan miisaankayga dhimo, ku beddel inaad tiraa waxaan jimicsi samaynayaa 3 maalmood asbuucii. hadda hadafkaagii waxaad ka beddeshay rabitaankii furnaa, waxaadna u beddeshay mid xadidan oo kugu xambaaraya inaad samayso. 2 waxaad dejisay hadaf aan qiyaasnayn. sabab kale oo aad ugu guulaysan la'dahay yoolkaaga ayaa ah inuu yahay mid aan qiyaasnayn. khalad aan aad loo qiimeyn dadkuna sameeyaan marka ay hadaf dejinayaan ayaa ah qiyaas la'aanta. ma qiyaasi kartaa hadafkaagu, mana qiimayn kartaa geedi socodkiisa? haddii jawaabtaadu maya tahay, waxaa habboon inaad dib ugu laabato qorshaha hadafkaaga, waxna aad ka beddesho. tusaale ahaan, haddii aad tidhaahdo hadafkaygu waa inaan keydsado lacag badan, dabcan taasi waa wax adag in la qiyaaso iyo sida aad ku heli karto lacagtaas. laakiin haddii aad xadido kuna beddesho inaad tidhaahdo waxaan doonayaa inaan keydsado $1,000 sanadkan, markaas way fududdahay inaad raacdo hannaankii aad ku heli lahayd $1,000. kadib waxaa si joogto ah ula socon kartaa qasnadaada iyo halka ay xisaab ururintaadu marayso, waxaadna ahaan doontaa mid faraxsan marka aad u sii dhowaato qiimihii aad qorshaysay qabashadiisa. 3 waxaad dejisay hadaf aan la gaari karin. inaad hadaf dhigato waa yididiilo aad u sarraysa, waxaana ku hamin kartaa inaad noqoto milyaneer, caalim diineed, dhakhtar iyo wixii la mid ah. ha yeeshee haddii aad dejiso hadaf ka baxsan awooddaada, socodsiintiisa iyo suurtagalnimadiisaba waxay u badan tahay inaad ku haraado hiigsigiisa, ugu dambaynna rajada kaa habooda. si fudud oo aad uga hortegi karto dhimaaladaas ayaa ah inaad degsato marka horeba hadaf aad hiigsan karto. 4 hadaf, waxaad dejisay hadaf aan ku habboonayn noloshaada. waa hubaal inay jiraan ahdaaf badan oo aad ku haminayso inaad gaarto, sida degid meel kale, barasho xirfad cusub iyo noqosho waxaadan ahayn. haddaba weli ma isweydiisay in ahdaaftaas noloshaada, diintaada iyo midda familkaadaba ku habboon yihiin? waxaa laga yaabaa inaad ku faraxdo ku guulaysigooda, ha yeeshee ay dhinaca kale noloshaada ku noqdaan kuwa aan u qalmin. sidaa daraaddeed, hubi inuusan hadafkaagu noqon mid wakhti kaaga luma. hadaf kasta waa inuu lahaadaa ujeeddo sax oo ka dambaysa una khalanta noloshaada. 5 waxaad dejisay hadaf aan wakhtiyaysnayn. sababta ugu dambaysa ee kaa dibdhigaya inaad gaarto hadafkaaga ayaa ah iyadoo aysan kuu wakhtiyaysnayn. aan sii bayaaniye, hadaf kasta aad dejinayso waxaa lama huraan ah inuu lahaado maalin ama bil kama dambaysa. taasi waxay ku siinaysaa dhiiranaan ah inaad sii ambaqaaddo hannaankii aad ku hiigsan lahayd hadafkaas intaan la gaarin wakhtigii aad qabsatay. yeelkeeda, haddii aad dejiso hadaf aan wakhtigiisu xadidnayn, waxaa hubaal ah in yoolkaas gaaridiisu wakhti dheer kugu qaadato, haddii kalena aadba ka wahsato hawshiisa. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan u riyaaq ama like saar, kadibna la wadaag asxaabtaada. sidoo kale ka fikir inaad rukumato ama sabskribe aad dhahdo kanaalkan si aad asbuuc kasta u hesho qodobo iyo tallaabooyin wax badan ka beddelaya noloshaada. insha allah. mahadsanid.